بسم الله الرحمن الرحيم قضبك أما موضوع اللقونديي إنا وحكت المامو وموضوع عرقتي إذا آد مهمة وحال إلى ذا اسمها قيس وناكسن أيال إلى هذا وحانو بحيي كلمة لما موضوع بيكاكم نانونتا قيبت كوبات وقيبت هردعك وانا الصدن iyo sagaal qodob weey waxaana la yiraahdaa ibaro waan ku barane qaybta labaadna isbarashadaasi wixii ka dhashay oo aan u bixiyay mafaatiixu tafaahum bayna zawjayn furayaasha la isku fahmo lamaanuhu ay isku fahmaan labada qaybood bay ka koobnaan doontaa hadii Allah yiraahdo subhanahu wa ta'ala marka cidi xogaa jacayl dareemaysa soo fariisato cidi jacayl yar dareemaysa ama doonaysa inay reer dhisato mustaqbalka ama xogaa reerka ka yar halaysan yahay oo doonaysa inay toosiso ha soo fariisato insha Allah ta'ala hadaa la yiraahdo hordhaca wuxuu leeyahay qaybta koobaad ee baro waan ku barane qaybtan waxaan isticmaalayaa 39 ka qodob intaana gabadha guursanin waan arki doontaan qodobada muhiimka ay leeyihiin waxaan ku bilaabayaa waxaan jecelahay inaad ii sheegto waxa calooshaada ku jira gabadha shukaansanaysa wiilkii gabadhi baa shukaansanaysa wiilkuna gabadhi buu shukaansanaya waxaan jecelahay inaad ii sheegto waxa calooshaada ku jira ee runta ah waxaa kaloon aan rabi lahaa inaadan waxba iga qarinin daacadna ii noqoto waayo waa arrin la xidhiidha mustaqbalka dhow iyo midka dheerba waxaan kaa codsanayaa inaad iga soo jawaabto su'aalahan hoos ku xusan adigoo aad iyo aad u mahadsan saasi u qoranta ayadoo Soomaali ah su'aasha koobaad gabar yahay su'aasha koobaad wiil yahow waxaan ku weydiinayaa kow maxaad maraysaa su'aasha koobaad ee noqonaysa oo ku jeclahay beerka i xanuunaya ma aha say dhalinyaradu isku shukaansadaan xalay ma seexanin kaale i seexi ma aha macno qodobka koobaad ma idiin sheegaa xiriirka aad la leedahay cibaadada Allah gaar ahaan salaada waa sidee su'aal waay inay taariku salaad aan ilaahay ku xidhnayn reer ma dhisi kartaa ii jawaab reer ma dhisi kartaa maya ma dhisi karto kaas waa qodobka koobaad qodobka labaad qaabka ay ku arkaan bulshada aad la nooshahay waa noocee fiiri bulshadu qaab bay ku arkaan adigana qumanaha qoorta kugu jira ninka u fiican baa iskugu fiican baa tay adigu waxaad leedahay nin ka fiican ma jiro laakiin dadku qaab kale ku arkaan ogow dadku siday ku arkaan qof aamusan oo dadka ka go'an oo aan hadlaynin maxaad la aamusantahay tolow ma doqonnimo la aamusantahay mise aqli waxaan ahay qof bulshaawi ah oo dadka dhex gala hadhowto guriga sirtiisa sidoo qarin doontaa waxaan rabaa inay gabadhu ogaato ama wiilku ogaado qofkani bulshada dhaxdeeda sidee buu ku yahay jawaasiis ii shaqaysana waa leeyahay anigu oo waxaad ii sheegtay adigu waan ku dabamarayaa dadkan soo weydiinayaa qofkani waxa uu yahay qodobka saddexaad maxaa balwad ku ah oo aad xiisaysaa ii sheeg kubad baad jeceshahay ma filimaad jeceshahay gabadhay ma sheekadaad jeceshahay yaa mabaqaad bad cuntaaba geed kharaarka miyad cuntaa yaa maxaa jeceshaa balwad ku ah waa in laga soo jawaabaa mawduuca ibaro waan ku baran baa la yiraahdaa hatta odayga 70 jirka meesha fadhiyo waa anfacaysaa ee islaantiisu isfahmi laayihiin midka dhalinyaradana waa anfacaysaa mid kastoo dhaarsan bay anfacaysaa waxaa la yiraahdaa ibaro waan ku barane maxaa balwad ku ah oo aad xiisaysa waa qodobka saddexaad meela socotaan qodobka saddexaad qodobka afraad xiriirka aad la leedahay waalidka
inteed ku qiyaasi kartaa qof waalidkii soo habaaray adi ma ku dhaqi karaa ya gabar habaaran oo lagu tufay iyo nin habaaran oo hahay la yidhi ma reer bu dhaqi karaa waa habaaran yahay marka waa inaad ogaato qofkaad la noolaanayso waalidkii siduu ku yahay reero badan oo burburay ma oga waxay la burbureene wiil habaaran baa meesha ku jira gabadh habaaran baa meesha ku jirta cadhadii allah samada kaga socota markaasuu leeyahay reerkii baan ku degi la'ahay seed ugu degi hooyadaa baa ku habaartay oo aabbaha baa ku habaaray haddaba qodobka horaad wuxuu leeyahay xiriirka aad la leedahay waalidkaa intee in la eg buu qodan yahay hoos jiraa intee in la eg buu qodan yahay qodobka shanaad wuxuu leeyahay markaad go'aan qaadanayso qaabkeed u qaadataa markaad go'aan qaadanayso seed u qaadataa nin labaclabaca gabadh labaclabacada oo aan go'aan qaadan karin weliba raggaya ragga nimaan go'aan qaadan karin reer ma dhiso dhallinyar ma maqlaysaan nimaan go'aan qaadan karin reer ma dhiso laabudda waa inaad tahay nin go'aankiisa ku kalsoon markaad dadka la tashato kadib qodobka lixaad wuxuu leeyahay fasaxyada iyo xilliyada firaaqada maxaad u isticmaashaa waqtiyaalkaad firaaqada tahay maxaad qabataa waa muhiim waxaan rabaa inaan ogaado talow markaan fasaxan nahay ma anaad igu mashquuli doontaa ma anigaad meel igeyn doontaa ma anaad turki igeyn doontaa ma anaad diyaaro isaari doontaa ma anaa ila sheekaysan doontaa ma anaad maqaaxiyaa igeyn doontaa ma anigaa suuqa ila soo wareegido aniga carruurtayda mise meel kale kaaga caddahay fasax baana gabadhan oo sidoo kale xilliyada aad fasaxa tahay maxaad qabataa waa qodobka lixaad ogaada qodobka toddobaad dhegaysta ma jiraan xanuunno khaasa oo aad qabto ii sheeg hadday 10 meelood lagaa soo qalay oo adiga dhamma jirkaaga karkaran yahay oo hadhowta markaad guriga igu soo gasho aad ii dimaato oo nin maad moodo maro la tolay hadhowta xaggeed aadi sooma haddii markii guriga aad soo gasho ayba soo baxdaba ninkani inuuba sonkor midda ugu sarraysa iyo dhiikar meedka ugu sarreeya soo maaha ilaahay hana caafiyo ya gabadh baa nin guriga loo geeyo habeenkii saa guriga loogu geli bay suuxday dhakhtarka markii la geeyana waxaa lihi gabadhana asmay qabtayba maxaad u sheegi weyday asma inaad qabto ila habeenkii arooska waa suuxday cudurradu waa wax jiri kara dhalinyaro su'aal baad weydiinayaa run iga jawaaba markaad gabdhaha shukaansanaysaan su'aalaan ma weydiisaan beerka ay xanuunaya sooma taasaad ku mashquushaan su'aalahan waa su'aalo muhiima weeye si fiican u dhegaysta waana waxa uu guryaha nooga dumay ogaada ma jiraan xanuuno khaasa oo aad qabto ii soo sheeg qodobka 8aad waad la yaabi doontaan ma khuurisaa habeenkii maxaa dhacay haddayba anigu aan ahay dadka markay hurdadu ka tagto aan seexan karin mar labaad adiguna khuuradaada deriska laga maqlayo soo jeedkaa badan hadhowta xanuun baa igu dhalan doona iisii sheeg marka inaad khuuriso oo khuuro weyn aad leedahay khuurada quruxda badan lama sheegayo xaragada khiiq ah khuurada waxaa sheegaya maxaa la yidhahdaa deriska iyo colka iyo markay yimaadaan haddaa ninkaa laftiisa khuurada weyn colaad markay dhacdo waxaa weeye asaga ragga lagu hordilaya saa daraaddeed waa inaad dhahdo gabadhay ma khuurisaa laakiin khuurada ragga u badan sooma qodobka 9aad dhegaysta cuntada nooceeda ugu jeceshahay adeer ninkaagan indhaha waa weyn haddaada gabadha weydiinin cuntada aad jeceshahay sidaan horay u sheegnay wax badan ku celnay bariis baasto dalacbilaash haye dhowr jeer waan ku celinay hadhowta maxaa dhacaya haweenku inay dhahaan sheekhow nimanka soomaaliyeed jacayl waxba kama yaqaanaan sax waa nimay ayadu toogatay waa nimaad adigu dishay gabdhaha waxaan ku dhaha ragga waa la nafaqeeyaa fiiriya su'aal hadda haddaan gabdhaha way iga fog yihiine aan hal su'aal weydiin lahaa waan jeclaan lahaa oo aan codkooda maqli lahaa oon gabadh walba aan ku dhaho
caruurta guriga joogta yaa caruur ilmahe ugu yar yaa caruurta guriga kuu joogta ilmahe ugu yar haween badan baan weydiiyey islaam walba waxay leedahay wiil baa iigu yar gabadh baa iigu yar aamus ninkaa kugu yar ilmaha waxa ugu yar waa ninka weliba waa idiin sheegayaa dhegaysta qofka ugu dambeeye la seexiye ee sariirta la geliye ee go'a la huwiye ee caanaha la siiyo ma ilmaha mise waa ninka runta ii sheega soo ninka maaha fiiriya haddaba dadka guriga ku nool ilmaha ugu yar ilmaha reerka ugu yar ma la dayacaa mise waa la dhaqaaleeyaa dhaqaalaysta dumarkow raggiina dhaqaalaysta oo macsarada iyo cambuulada ku gura iyo kalluunka waxaa kale oon jeclahay inay gabdhuhu fahmaan iyo raggaba in masaajka la barto masaajka ma taqaanaan ninka markuu shaqada ka soo noqdo odayga intaad sariirta aad go' khaasa saarto seexi asaga dhanba kadibna min madax ilaa luga masaajka u samee oo haddaadan ninkaaga u masaajaynin ma islaan gaalaaba u soo masaajayn marka aduu kugu soo daalay ninkuna waa inuu masaajka barto xaaskiisu masaajay isu masaajeeya marka cambuuladu waa muhiim oo digirtu waa muhiim oo macsaradu iyo olyaliibadu waa muhiim oo kalluunku waa muhiim oo qudaartu waa muhiim marka ragga hala dhaqaalaysto haddii kale hadhowta waxaa la dhihi ragga soomaaliyeed jacayl ma yaqaanaan nin aad dishay jacayl muxuu ka garan allihii allah cuntada nooceed oogu jeceshahay haddaba ninkaagu isi sheeg gabadhuna ha weydiiyo qodobka tobnaad maxaa kaa xanaajiya si aan kaaga ilaaliyo allahu akbar qodobka waan ku celinayaa leesh lianna waa qodob muhiima war haddaan xanaaqo haddii aad xanaaqdo war qorta dee darsiga anigan sheekhaas cimaamadda cad khayr allah siiyo qor waa muhiime jazaaka allah khayran hore baan u idhi ninka jacayl dareemaya ha yimaado saas maaha gabdhahana waa saas iyagana waxaan doonayaa marka inaan dhaho cuntada maxaad kaa xanaajiya si aan kaaga ilaaliyo hadda iisii sheeg waxaad wadaa aniga waxaasaan ka xanaaqaa oo waxaasaan ka liis dheer u soo qor gabadha liis u soo qor aniga waxaasaan ka xanaaqaa iga ilaali gabadhana ha dhahdo nimo wiil yahow anigana waxaasaan ka xanaaqaa ilaahay baa idinku dheeriyey caawa haddaad tagto maxaa liya saydaliyada ama farmarsiga markaad tagto farmashiyaha oo aad daawo ka soo gadato soo warqad lama socoto warqaddaasaad u isticmaali lahayd soo saas maaha ma idinla tahay ya wax walba waxaa loo sameeyey nidaam masaajidada nidaam lagu kala socday leeyihiin reer dhan oo dhismaya wuxuu ku kala socdo ma lahan ma saasaan qiyaasaynaa laa reerku wuxuu ku kala socdu leeyahy horta seen kuu aqaanaa haddaad xanaaqdo waxaad ka xanaaqdo seen ku garanaya horta anugu waa su'aal da'weyne yaa ii sheegi kara waxaad ka xanaaqdo ii sheeg waxaad ka xanaaqdo adigana soo gudbo waxaad ka xanaaqdo waa qodobka tobnaad weeye waa muhiim meel ku qorto qodobka tobnaad qodobka tobnaad haddii aad xanaaqdo maxaa daawo kugu ah oon kugu dejiyaa waad xanaaqdo soo maaha gabadhi baa waxay tidhi haddaan xanaaqo sariirtaan galaayo waan isduuduubaa waan seexdaa laylama hadlo sax daa ha isduuduubtee ha la hadline daa waxay tidhi haddaan xanaaqo naqaskaan iska sii daayaa waan qayliyaa adna waa inaad aamustaa markay islaantu xanaaqdo aamus dariishadaha soo xidh tiifiga dami carruurtii adiga beerbeer u seexda isdhegaysta islaantu ha qaylido mar xagga ha kuu dhaafto mar xagga ha kuu dhaafto afka abuur ha ka kiciso ayadaa marka dambe iska kaca ku dhihi leesh li'anna marka hore isku ogeydeen sooma waxay ku degtay waa inta laakiin daddood maxaad la qaylaysaa ifur hal baan kugu furay ii dhammaystir saddexdaan kugu furay maxaad sugaysaan marka maba la isyaqaanee ninkii baa wuxuu yidhi haddaan xanaaqo waan baxaayo raggaan la soo sheekaystaayo masaajidada iyo maqaaxiyaan tagaayo hadhowta anigoo ubax ku wadaan ku imaanaya iyo shukulaato daa ninka iridda ha u istaagin ha soo cara baaba'ee daa warka ayaa samayn karaa
warka ayaa samayn kara waa cidda waxaan fahamsan weeye laakiin ma garateen hadda reerahani waxay nooga dumayaan waa dadaan weli isbaranin weeye ayib qodobka 22aad ma tahay qof jecel nadaafadda jirka dharka guriga iyo gogoshaba haddaan nadaafadda aan laisku waafaqin haddee guri yaabla ayaa lagu noolaanayaa qodobka 13aad kuweed ugu jeceshahay in la xiriiriyo ehelka iyo saaxiibada yaa jeceshahay gurigaaga inay imaadaan saaxiibba ahaan marka laga hadlayo gabadha u sii sheeg saaxiibbo badan baa guryo dumiyey guryo waxaan garanaynaa ay saaxiibbo dumiyeen li'anna lagama wada hadlin gabadhii saaxiibbay la socotaa uusan ninku jeclayn ninku wuxuu la socdaa saaxiibba ayna gabadhu jeclayn war ninkaa ma jeceli qaar baa acazakumullah wax la sheega ma aha barnaamij ila tali la yidhahdoon isticmaalo ayaa waxaa in badan lay weydiiyaa saaxiibtay ayaa ninkaydii iga shukaansatay haye saaxiibkay fiiri saaxiibka ninkayga saaxiibkii ayaa guriga igu imaadoo wuu ii hunguriyeeyaa subxaan allah soo waxaa marka hore in bannaanka la marya maaha war guriga yaa saaxiibkoo soo gelaya waa kuma waa qodob isagana aad iyo aad muhiima weyan qodobka 14aad qaabkeed u jeclaan lahayd inuu arooskeennu u dhaco aroos aan laga wada hadlin waan ku jeclahay waan kaa helay arooskii baa la gaadhi mar alla markii arooska la gaadho waxay leedahay adeer anigu arooskay waxaan rabaa hotel in lagu qato maxaa la dhahaa maxay 5 star anigu waxaan rabaa adeerkay oo Canada degan iyo ayayda Ingiriiska degan iyo maxaa la yidhaha abtigay oo halkaa degan inay ka soo qayb galaan haye kooxdii muusikada iyo islaantii buraanburaysay iyo maalinta dhalinyarada iyo maalinta haweenka iyo maalinta siisagootinta ayaa meeqa kharash baa ku baxday ii sheega qodobkan waxaan kaga niqaashi doonaa galabta 6 galabnimo markii la gaadho barnaamij dhalinyarada loogu talagalay bas ah oo magaciisa la yidhaahdo dhalinyarada guurka maxaa ka hortaagan hadday isguursadeenna durba maxay isu furaan ayaan kaga niqaashi doonaa haddii alla yidhaahdo oon jecla inaad si fiican aad nogala qayb qaadataan haye arooskeennu qaabkee u dhacayaa anigoon ku guursanay waa inaan ka heshiinaa haddaan ku arko inaad micyo dhaadheer leedahay waxaan ku leedahay abbaayo duurka gal mid yaroo aan isfahmaynaba imaanayse sax sooma ayib qodobka kale wuxuu leeyahay meherkaagu waa meeqa haye waxaa jira meher la yidhaahdo ii maqashii ma maqasheen ii maqashii ha la yidhaahdo magaaladan oslo la yidhaahdo gabadhii ugu meherka qaalisanayd weeye allahu akbar iigu dhawaaq kolba ima siin doonee laakiin kaamirada ha ii gasho facebooka ha lagu faafiyo in hablaayo intaa lagu meheriyey shaytaanku sida ugu ciyaaray fiiri galabtan kaga hadli doona haddii alla yidhaahdo qodobka 16aad yaad la socotaa oo saaxiibba la tahay aniga saaxiibbadaadaan raba inaan hadhowta kugu qiyaaso dadka aad saaxiibbada la tahay qodobka 17aad waan ku jeclahay maxaa laga wadaa wallaahi cajaa'ib way qodobkan in badan baan maqlaa waan ku jeclahay waan kaa helay beerkay xanuunaya dhiiggaan kuu shubayaa maxaa laga wadaahe aye haddaan weydiiyo ninkaas odayga ah ninkaasaan sheegayaa ninka haddaan su-aasha weydiiyo mise ninkaasaan weydiiyaa maya kaasaan weydiinayaa xaaskaaga markaad leedahay waan ku jeclay maxaa ka wadaa gabadha inteeda guursanin aad leedahay waan ku jeclahay maxaa laga wadaa horta waa in las weydiiyaa war waan ku jeclahay waa in meel la saaraa huhaa weeye waan ku jeclahay waa in meel la saaraa idan su'aalahan oo dhan fiiriya waxay u baahan yihiin jawaab mar dhowna waxaa arki doontaan innagoo intaan weeb u samaynay oon su'aalahan jawaabo ku soo qornay qofku intuu jawaabahan galo su'aalahan uu qoro kadibna warqad kuu soo baxayso oo ku dhahaysa adeer weli maa guursan kartidee dib ugu noqo koorsaa lagu siinayaa gabadha ordaysaale nin baan guursanayaa adeer horta bal shuruuddan soo buuxi nin kale horta waan guursanayo horta bal shuruuddan soo buuxi okay yaad la socotaa waan ku jeclahay maxaa laga wadaa qodobka 18aad haddii uu yimaado khilaaf sideed u xallin doontaa qaabkee goobtee xilligee waa muhiim jiddan wey malaa'ig isma guursanin waxay isguursadeen waa bashar caadi ah
haddaba haddaan isguursanno khilaaf imaado waxaan rabaa inaan ogaado khilaafka saad u xallin doonto goobtaad u dooran doonto qolka jiifka xol laguma xalliyo qolka jiifka hoolo waaweyn oo kale u yaalla dadka qaar baa waxay ku xisaabtamaan qolka jiifka haddaay hadalka maxaad ii lahayd markaasaa hurdadii ninkii ka tegaysa oo gabadhii ka tegaysa markaasuu xagga isu gedinaya or qolka jiifka nidaam baa loogu talagalay dhalinyaro xaggee wax lagu xalliyaa fadhigaa lagu xalliyaa goobtee lagu xalliyaa xilligee la xalliyaa ma markaan xanaaqsanahay ma markaan shaqada ka soo galo ma markaan daallanahay ma markuu madaxii xanuunayo ma markay goormaa la xalliyaa saacaddee la xalliyaa meeshee lagu xalliyaa warkaa su'aaliyiinta alawey adeer ninka qoslayow shaqada arida kuu taallaa ka jiifso qodobka 19aad qaabkeed u fahansan tahay barbaarinta ubadka adeer carruur hadduu allana siiyo qaabkeed u fahansan tahay meeqa kitaab baa soo akhriday meeqa dawraad soo qaadatay meeqa muxaadaraad soo dhegaysatay horta ilmaan dhalayaa ma ahane horta ilmo in la barbaariyo maxaad u fahansan tahay qodobka 20aad dhaqaalaha reerka sideed u qorshayn doontaa mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka dheerba adeer reerkani waa dawlad reerkan dawladda dhaqaalihiisu xagee ka soo gelayaa habeen dhoweed waxaa lay weydiinayey sheekhow waa ninaya xaas baan ku qabaa ameerika midna soomaaliyaan ku qabaa tii ameerika joogta waxay leedahay waxba ha shaqaynina guriga noo joog adeer haddaadan shaqaynin maxaad qabanaysaa ma islaanta war annagaa wax aragnay hadda ka hor Soomaaliya xoolaha dumarka dhurwaabaa ka eesheeg Soomaalida maqal xoolaha dumarka dhurwaabaa ka calacalay dhurwaabaa neef adhi qaaday islaantu markay arto dhurwaab waxay alla waa kii neefkaygii cunay dhurwaabaa wuxuu yidhi wallaah haddaan xoolaha dumarka xoolaha ka aqoon lahaa maba cuneen adigana markaasaa doonaysaa inaad maxaa la yidhahdaa aad haweenka waxooda cunto war haweenka waxooda ha loo daayo oo hala shaqaysto waa muhiim qodobka marka qaabkee qodobka 20aad dhaqaalaha reerka sideed u qorshayn doontaa aan isku waafaqno qodobka 21aad mustaqbalka fog xagee jeclaan lahayd inaad ku noolaato adiga iyo xaaskaagaba maxaa mustaqbal noo ah waa qodobka 20aad weeye qodobka 22aad qalbiga halkan ii soo jeesta marka qalbiga ii soo jeesta wax yar ii soo jeesta qalbiga xaaskaagu dhash ninkaagu hadduu isxidho qalbiga ninkaagu ama gabadh yahay ama nin yahow qalbiga xaaskaaga hadduu isxidho maxaa lagu furaa meeqa furaad haysataa ya meeqa furaa qalbi isxidhay in lagu furo meeqaad u haysataa adeeradaa su'aasha lagaa rabaa aye qalbiga waa isxidhay furaan u baahannahay marka haddaadan furan aqoonin qalbiga adeer iska luge haddee iska luge qalbi isxidhay wixii lagu furi lahaa waa in la helo weeyaan qodobka 23aad maxaa kobciya allah kan waa cajaa'ib dhegaysta kan indhahaas ku qabtaan mar caadi ma aha kan khatar weeye wuxuu yidhi maxaa kobciya jacaylka kana dhiga beer qurux badan iyo biyaha badda oo kale yaa salaam haye waxaa suuraysataa beer qurux badan iyo biyaha badda jacayl ahoo adiga xaggaa ka soo burqanaya haye weli suuqa lagu gado ma tagtay biyaha jacaylka lagu waraabiyo weli ma soo iibsi jacaylka maxaa lagu waraabiyaa dhulka maxaa waraabiya biyo soo maaha ayaa jacaylka maxaa waraabiya adu ma is weydiisa jacaylka in la waraabiyo malab ya jacaylka maxaa waraabiya waa inaad biyaha noocaas raadisaa qodobka 24aad aniga iyo adiga maxaan isku raacsannahay oo naga dhaxeeya horta su'aal aniga adiga maxaa naga dhaxeeya ayuutan wada gelaynaa soo moogid shaloongaan wada gelaynaa sooma maxaa naga dhaxeeya wax walba soo nagama dhaxayn karo haddee waad yaabaysaan wax naga dhexeeya haddaa idiin sheego xataa candhuuftaa naga dhaxaysa allah nabigu intuu biyo cabo oo saa u wareejiyo ay caaisho saa u wareejiso ayaa meeshuu nabigu ka kabaday ka kaban jirta allah keligaa waad dhali weyday anna keligay waan dhali waayey shahwadaa naga dhaxaysa haddee ma waxa naga dhaxaynin baa jira adi keligaa ma dhali kartaa
anigu keliga ma dhali karaa saan shahwada iskugu darsannay wax walbaa nooga dhexeeya idan qodobka 24aad aniga iyo adiga maxaan isku darsannaa oo naga dhexeeya qodobka 25aad reerka maamulkiisa yaa xaq u leh kan dhagaha u fura reerka maamulkiisa yaa xaq u leh reerka yaa madaxweyne ka ah war heedhaha gaariga yaa wadaya tareenka yaa wadaya diyaaradda yaa wadaya ma gabadhaa wada mise ninkaa wada mise waan wada wadnaa bal shaydaanka iska naarorta soo saas maaha idan waa su'aal qaangaadha weeye su'aashaan waa qaangaadh la socda 15 sanay dhaaftay reerka maamulkiisa yaa xaq u leh ii soo sheeg wareedhe gabadha intaana shukaansanayaba haddaanan arrintanana ka wada hadlin haddii hadhowta maxaa dhacaya yaa waad isiin doonaa waxaasoo dhan waa ka niqaashi doontaan insha allah qodobka 26aad wada tashiga lamaanaha maxaa laga wadaa aan wada tashanno maxaa laga wadaa aan wada tashanno ayib aan wada tashanno maxaa laga wadaa yaa ka jawaabi kara aan wada tashanno maxaa laga wadaa waa in la yaqaano sidii loo wada tashan lahaa reeraheenna dhibaatada ugu weyn waa maxay fannu idaarati alkhilaaf baana garanayn khilaaf hadduu dhaco see loo maamulaa khilaaf hadduu dhaco see loo maareeyaa soomaali o dhan baa garan la sooma soomaali o dhan baaba hadda garan la khilaaf baa dhacay soomaha war seen u maaraynaa xataa waa la garan la'yahay qodobka 26aad qodobka 27aad haddii ay musiibo dhacdo qaabkeed oo la dhaqmi lahayd abaar baa dhacday colaad baa dhacday xanuun baa dhacay imtixaan baa dhacay sideed u maarayn lahayd qodobka 28aad qodobka waa muhiima dhegaysta albaabka markaan ka soo galo seedii qaabili lahayd haye wejigee hadalkee ficilkee ayaad ii qaabil lahayd ninka guriga soo galayna wejigiisi waa noocee markuu guriga soo gelayo waa qodob muhiima wey qodobka 29aad marti iyo mudane sideed u maamuli doontaa marti waa dadka caadiga mudanahuna waa dadka qaraabada siiya maalan sideed u maamuli doontaan marti iyo mudane qodobka 30aad ballanta kowdhe cadaaladda xuquuqda runta iyo dareenka mas'uuliyadeed maxaad u taqaannaa waxaan rabaa inaan ogaado ballan maxaad u taqaan cadaalad maxaad u taqaan xuquuq maxaad u taqaan run maxaad u taqaan mas'uuliyad maxaad u taqaan labada qof ayagoon isguursanin waa inay masaa'ilka imtixaan ay ku galaan si ay go'aan oga gaadhaan ama ninku go'aan oga gaari karo gabadhan ma tii kugu habboonaydbaa wiilkani ma kii kugu habboonaabaa dhallinyaro mila socotaan si fiican su'aalahan waa muhiim waan sheegay qofka raba haddaan siinayaa laakiin ka soo shaqee inaad ka soo shaqaysaa lagaa doonayaa qodobka 31aad ma tahay qofkii qof wixii loo geysto aan iloobin cuqdadlow miyaa tahay waad arteen hadda reer 30 sano isqabay baad arrintooda gelaysaa fiiriya reer 30 sano isqabay ayaa arrintooda gelaysaa markaasay leedahay jabadaan waagaan deganayn goormay ahayd waayo wax laga soo tegey ayay ku leedahay waxa ninkiina wuxuu leeyahay hadalkaad waagaa ay tidhi dikru ljafaa bacda safaa jafaa waa sidaas weeye qodobka 32aad sirta guriga noocad u taqaanaa sirta guriga noocad u taqaan sirta guriga ma la fahmo culumalaay inteed u taqaanaa laakiin annaga sirta guriga waxaan u naqaanaa maalan hadal la bixiyo soo maaha maya intaa keliya maaha haddaan arko ninkii oo meelaha la iskugu imaado ku daahaya oo jecel inuusan gurigiisa aadin ninkaas sir buu bixiyey sirtuu bixiyey waa maxay guriga kuma faraxsana islaantu inuu ka seexatuu rabaa islaantu markay seexato inuu guriga soo galuu rabaa soo saas ma sirta siyaalo badan baa loo bixiyaa sirta guriga noocad u taqaan qodobka 33aad ma ii sharxi kartaa tiirarka uu ku taagan yahay reerka wanaagsan reer wanaagsan baa jira meeqa tiir buu ku taagan yahay ii soo sheeg bal islaamku meeqa tiir buu leeyahay soo shan ma laha soo islaamku 5 tiir kuma taagno su'aal
guri wanaagsan meeqa tiir buu u baahan yahay haddaada ilaa aqoonin inta tiiree gurigu ku taagan yahay seen u dhisanaynaa guri baad rabtaa inaad dhisato intaasoo tiir ka maqan yihiin waa dumaya marka cala tuul dhulku ku dhacaya qodobka 34 haddaan kula qodobka 34 haddii ma iska daya qodobka mise waa isku darasna ma raaciyaa okay qodobka 34 haddaan kula guursado anoo ku jecel maxaa samayn lahayd hadda anoo ku jecel macnay leedahay ogow haweenku waxay u fahmaan hebel waa guursado waa indhacay may taa kuma hadlayo anoo ku jecel haddaan kula guursado maxaa samayn lahayd adoon guursanin kala soo hadal waa muhiim annagoo isguursanin baan arrintaa meel isla dhigaynaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala qodobka 35aad raalli ma ka tahay inay xaaskaagu shaqaysato ama waxbarashada sii wadato in aday ku anfacaysaa soo ma su'aaluhu aad bay u fara badan yihiin ilaa waxaan ku khatimayaa haddaan qodobka 36aad haddaan kaa dalbado inaad u soo guurto magaalada ama waddanka aan deganahay maxaad dhihi lahayd ana waddanka aan deganahay qodobka 37aad waa idiin sheegaye waa qodobka ugu dambeeya mid ka horreeya 37 haddaa yidhi soo maaha waa 38 ayib qodobka 17aad waxbarashada dhanka diinta iyo maadiga halkeed kala maraysaan maxaa taqaanaa wey xagga cilmigaaga qodobka 38aad ma jeceshahay wax akhriska hadduuse qofka waxba akhriyin sidee wax loo horumarin karaa qodobka 39aad maxaa u dhaxeeya qabiil iyo qabaliyad keedsa ku dhaqantaa allah yacni hadduusan ninku labadaa kala garanaynin oo nin uun qabiil ka buuxo gabadhii uu gacanta u galo ama gabadh reerkoodaba haddii la soo qaado ayada dhanba reerka waa isdilayaan gebagabadii gunaanadkii iyo gebagabadii fiiro gaara ugu dambayntii waxaan ilaahay kaaga baryayaa qof walba ka kaluu ku leh inuu kuu fudeeyo su'aalahan jawaabtooda waxaana diyaar kuula ah insha allah inaan kaaga jawaabo wixii aad i soo weydiiso wada shaqayn wacan wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu